saaxiibayaal walaalkeen qurux ku dhiig lamaanta innaga ayuu inoo baahan yahay reer Commentio waxa aan ku aqaanay inay yihiin dad goob ah wanaagana wax ka yaqaana dadkana caawiya walaalkeen qurux ku dhiig la hadii uu maalin uu ka qosliye ambaba aad taageero u tahay maanta adiga ayuu ku baahan yahay sababtoo ah walaalkeen waxa uu waayay walaashiis 3 usbuuc ka hor ayaa walaashiis inuu xaaladeeda ogaado ugu dambeysay walaashiis geeri iyo nolol waxa ay ku sugan tahayna hadda walaalkeen qurux ku dhiig la war kama hayo aadna uu warwarsan yahay oo walaashiis ayuu u baqayaa xaaladeedana uu ka warwaraya nin walaashiis maqan tahayna waa dareemi kartaan xanuunka uu dareemayo saaxiibaya isaga ayaa inoo sharaxaya walaashiis meesha ay ku maqan tahay iyo sababta loo waayay muuqaalkiisa ila daawahana ilaawina walaalayaal ina muuqaalkan like saartaan siina share gareysaan ilaahay baa idinku dhaarinaya walaal maanta hana iga xumaanina sababtoo ah walaalkeen walaashiis inuu helo ayaynu rabnaa kulligeen dad wanaagsanna waa tihiin ila daawada waa kane asxaabtayda gabadhana u jeedaan waa walaashayda Yasmiina la dhahaa 3 isbuuc aan la yahay 3 isbuucna nolol iyo geeri mid lagu haayo male waa gabar walaashayda ah adeerkayga dhalay Yasmiin Abdulqaadir Maxamed la dhahaa cid alaala cidii aragtay gabadhaasi waxay ku luusan tahay inta u dhaxaysa xuduudda Belarus iyo Latvia nolol geeri lagu maahay 3 isbuuc ala la yahay marka muuqaalkan walaalayaal ii share gareeya waxa laga yaabaa qof inuu gabadha arko dadka meesha ka tahriibay oo raba inay Yurub sii galaan war gabadha hada ila aragtaan waa walaashayda indiyan ku soo jeednaa meel walba waa wacnay ilaa hadda wax maqaalaha kama hayno qof dhalinyaro oo marka buufis galay oo ahaa waana dareemi kartaa xaaladaha qaar marka gabadha ila raadiya muuqaalkan ila share gareeya saaxiibayaal ina wada dhageysateen muuqaalka ayaa rajeynaya aynu u wada ducayno gabadha walaasheen ah inay soo baxdo iyada oo caafimaad qabta haddana xaaladeeda ilaahay waxaynu ugu baryeynaa inay noqoto xaaladda ugu wanaagsan insha Allahna waa la heli doonaa balse waxa la heli doonaa marka idinku caawisaan muuqaalkan walaal like saar siina share gare qof kasta oo aad taqaanid u share gare hal share oo aad muuqaalka share gareysid ayaa waxa laga yaabaa in gabadhaas lagu helo walaal ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo adigana walaalkeen maanta si aynu u caawino qosolkiisana aynu ka qayb qaadano muuqaalka aad wada share gareeno saaxiibayaal weligiis sidan share idima weydiisan balse ninka dhalinyarada ah ee gabadha walaashiis ahayl maadeerka ahayeen waayay ayaan aad uga naxay ilaahay subhanahu wa ta'ala ana sida ugu dhaqsiyaha badan leh si lagu helaha ka dhigo insha Allah salaamu alaykum saaxiibayaal goobbaati reer Commentio aadna waa idin jeclahay